waxaan wanaagsan daawadeel meel kasta dunida aad ka joogtaan waa barnaamijka ciyaaraha qodobadan ku eegi doonana waxaa ka mid ah ciyaarta aadka xamaasada u leh caawa mucaashaqiinta kubadda cagtu isha ku hayaan waa ciyaarta u dhaxaysa labada kooxood ee Juventus iyo kooxda Atletico Madrid. ciyaartan ayaa ka dhici doonta Ariesa ee garoonka Juventus. lugtii hore waxay ku soo dhamaatay 2-0 taasoo loogu adkaaday kooxda Juventus. haddaba garoonkan waxaa ka dhex muuqnaan doona oo lagu arki doona ciyaaryahankii hore ee kooxda Juventus waa Alvaro Morata kaas oo amaah ugu jooga kooxda Atletico Madrid isagoo ka yimi kooxda ku ciyaarta Istanbul Bridge ee Chelsea. haddaba kulankan waa kulan aad u xamaasad badan. kulankan kooxda Juventus waxa ka maqan 4 ciyaaryahan sida saxaafada ee dalka Talyaaniga ciyaaraha ka faalooda ay soo qorayaan. waxaa ka mid ah ciyaaryahanka la yiraahdo Douglas Costa oo dhashay dalka Brazil, Alexandro ciyaaryahanka kale isagana difaaca ka ciyaara ee bidix ee Alexandro oo dhashay dalka Brazil iyo ciyaaryahanka kale la Sami Khadira iyo ciyaaryahanka kale magaciisa la yiraahdo Quadrado. 4 ciyaaryahan ay saxaafadu soo sheegaysaa inay ka maqan yihiin kooxda Juventus taas oo la soo diristay dhaawacyo iyo qaar ganaxba ku maqan. haddaba kooxda Juventus waxa caaw u ciyaaraya oo isagana laga dhax arki doonaaba oo ciyaaryahankii weyn ee Cristiano Ronaldo kaas oo sanad ka hor ugu yimi kooxda Real Madrid. Ronaldo ayaa waa hor ugu dambeysay inuu ku haro wareegga 16 ah. Ronaldo ayaa wuxuu ka hor yimi kooxda Atletico Madrid 30 kulan 15 gool ka gaaray 7 kulan oo kamidna barbardhac ay ku dhamaatay 8 kulanna gool darro ay qaadatay kooxda Atletico Madrid. kooxda Atletico Madrid ayuu kala kulmay gool darro waxa uu ka dhaliyay 21 gool waa Cristiano Ronaldo kooxda Atletico Madrid intuu ka dhaliyay 21 gool. haddaba waxa la isweydiinaya ciyaartan ma noqon doontaa ciyaarihii mucjisada ku lahaa wiigii ama isbuucii hore ciyaarihii ka dhacay horyaalka ama Champions League. ciyaarihii ka dhacay waxaa ka mid ah kooxdii Manchester United oo wacdar ka dhigtay garoonka Paris, kooxdii Porto oo garoonkeega iyadana ka dhigtay wacdar oo soo baxday, iyo kooxdii Ajax iyo kooxdii Real Madrid. kooxda Ajax ayaa wacdar xoogan ka dhigtay dhirbaxa xanuun la ku dhufatay kooxda Real Madrid waliba garoonku waxaa Santiago Bernabeu 4-1 ayaanay ku dhamaatay. waxaana hay ciyaar aad u xamaasad badan. haddaba maxaa laga filan karaa kooxda Juventus ma soo raaci doontaa kooxaha nasiibku caawiyay ee Porto, Manchester United iyo Ajax mise waxay noqon doontaa sida kooxaha nasiibku caawin waayay ee Real Madrid, kooxda Paris iyo kooxda Roma. waxaan eegi doonaa waa saacado ka dhiman ciyaarta aad ku xamaasada badan. dhammaantiin aad u badmaasitiin fikirkiina halka noogu reeb. waxaan wanaagsan daawadeel meel kasta dunida